Salaamu Allaahi calaykum. Maalin wanaagsan, isku soo noqod wanaagsan. Waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtiin dhammaantiinba. Ka hor intaynan guda galin muuqaalkani, like inoo saar. Waxaynu qaadan doonaa maadadeenii farmakolojiga casharkii sagaalaad. Casharka kalena maanta waxaynu ku baran doonaa daawooyinka loo isticmaalo in lagu daaweeyo dhiig-yarida ee loo yaqaano anemic drugska. Qodobada aynu casharkeenu ku baran doono waxay noqon doonaan inaynu overview ku sameyno anemia iyo inaynu barano daawooyinka loo isticmaalo in lagula tacaalo daaweynta cudurka kani. Waxaan rajayn doonaa ilaa intaynu ka gaari doono dhammaadka casharkani inaad ila gaari doontaan biidnillaahi jalla wacala. Dhiiggu waa dareere si joogto ah ugu wareega xididada jirkeena. Inta badan baa jirkeena siiyaa oksijiin iyo nafaqo, waxaana jirka ka saaraa waxyaabo badan oo wasakh ah ee soo raaca dhiigga. Dhiigga jirkeena ku jira waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo kala ah qayb dareere ah ee loo yaqaano liquid part iyo qayb adke ah ee loo yaqaano solid part. Qaybta adkaha waxa ay ka kooban tahay saddexda unug ee loo yaqaano unugyada dhiigga cascas, unugyada dhiigga cadcad iyo unugyada xinjiroobida. Halka qaybta dareeraha ayna ka kooban tahay dheecankani loo yaqaano plasma, kaasoo inta badanba ka kooban biyo, cusbo iyo borotiinba. Haddii aynu u weecno markani qeexidda anemiyada. Anemia waxay qayb ka tahay cudurrada ku dhaca dhiigga, waana midda ugu badan ee inta badanba la arko. Waxa uu cudurkani inta badanba saameeyaa unugyada dhiigga cascas ee ku jira dhiigga ee loo yaqaano RBC ama red blood cellskaba. Waxaana ka dhalan karta marka uu saameeyo unugyadaasi in borotiinkani loo yaqaano hemoglobin ee ku jira RBC-da tiradiisa ay yaraato, taasoo ay noqon doonto marka qofka in lagu sheego cudurkani kadib marka uu maro qofka baaritaano caafimaad. Inagu ahaan maanta waxaynu ku qeexi doonaa anemia inay tahay marka si aan caadi ahayn ay u yaraato tirada hemoglobinta looga baahan yahay inay ku jirto halkii unit ee dhiig ah. Xaaladda noocaasi ayaa loo yaqaanaa anemia ama dhiig yari. Waxaa sababi kara cudurka noocan ah inuu yimaado waxyaabo dhowr ah, waxaana ka mid ah in qofka uu la kulmo dhiig-bax raaga, inay badato burburka unugyada dhiigga lagu sameeyo, iyo weliba infekshanada qaar ayaa sabab u noqon kara in qofka uu develop gareeyo ama laga helaba cudurka kani iyo anemiyada. Calaamadaha cudurkani haddaynu dul istaagno waxaa ka mid ah madax xanuun, hurdo yari, qofka uu ku adkaato neefta, daal fara badan, dawaqaad uu dareemo qofka xilliyada qaar, feejignaanta qofka oo lunta, iyo kalarka maqaarka oo isu beddela kalar cad ama sida afka qalaad lagu yiraahdo pale skin. Nutritional anemias. Anemiyada noocani waxa ay timaadaa marka qofka cunada uu qaadanayo ay ku yaraadaan maadooyinka sida ironta, folic acidka iyo vitamin B12-kaba. Haddii midkood uu ku yaraado, nooca anemiyada uu qofkaasi develop gareyn karo waxaa loo yaqaanaa nutritional anemias. Sababta ugu muhiimsan ayaana ah in maadooyinkani ay aasaas u yihiin samaysanka unugani loo yaqaano RBC-da. Daawooyinka loo qaato in lagu daweeyo cudurka kani ayaa waxa ay kala yihiin daawada koowaad oo ah iron, folic acid, vitamin B12 iyo daawada afaraad oo ah erythropoietin. Afartani ayaa ah afarta daawo ee la doorbido marka la doonayo in lala tacaalo cudurka kani ee anemiyada. Daawooyinka ironta soo hoosgala waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo kala ah kuwa afka laga qaato iyo kuwa xididada laga qaato. Daawooyinka ironta ah ee laga qaato afka waxaa ka mid ah daawada loo yaqaano ferrous sulfate, ferrous fumarate, ferrous succinate, iron calcium complex, ferric ammonium citrate. Intaasiba waxaa inta badan loo helaa si oral iyagoo u diyaarsan, waxaana laga qaataa afka. Kuwa laga qaato xididada waxaa ka mid ah iron dextran injection, iron sucrose, sodium ferrigluconate complex. Intanina waxa ay soo hoosgalaan
nooca ironta ee laga qaato xididada. Marka qofka uu qaato daawooyinkani ironta, waxaa lagu arki karaa calaamadahani midkood: in qofka uu dareemo calool xanuun, caloosha qofka oo fadhiisata, in qofka uu isku arko fuuqbax ama shuban, iyo saxaradii qofka oo kalarkeedu isu beddelo mid madow ah. Haddii calaamadahani mid ka mid ah qofka lagu arko, waa inaad ogaataa inay tahay side effectska ay leedahay daawadani iron. Dawadani folic acid waxaa la siiyaa dumarka uurka leh si ka hortag ahaan ah, si ay uga badbaado cudurkani. Waxaa kaloo loo isticmaalaa dawadani in lagula tacaalo nooca anemiyada ee loo yaqaano megaloblastic anemia. Haddii aynu fiirino daawooyinka vitamin B12 waxaa ka mid ah cyanocobalamin, hydroxycobalamin, iyo multivitamin preparation. Multivitamin preparation markaynu leenahay, kuwani waxay isugu jiri karaan kuwa syrup ah intooda badan, ama waxay noqon karaan daawooyin sida tabs oo kale la qaato, kuwaasoo inta badanna ay ku jiraan fitamiinaad badan. Haddii aan hadalka sii jilcino, waxaa la helayaa iyagoo ah shorobo ama kaniini. Daawooyinkan waxaa lagula tacaalaa labada nooc ee anemiyada ee kala ah pernicious anemia iyo megaloblastic anemiaba. Waxaan halkani kusoo afbeeraynaa casharkeenan maanta. Casharkani casharka xigeenteenu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum.